wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij ku saabsan hadal dhowaan ka soo yaray wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda puntland mudane maxamuud xasan soocade kaasi oo sheegay ama uu hanjabay wariyaasha ka howlgala deegaanada puntland oo uu sheegay inay dilayaan hadalka wasiirka sidoo kale waxaa ka mid ahaa in dalku aysan ku dhaqayn oo aysan u eegeyn dastuurka iyo sharciga puntland xilligan waxay ku jirtaa 18 sano ayaa xilligii la aasaasay waxa uga dhiman muddo ka yar 2 bilood haddaba hadalkan sidee ayay dadweynuhu u arkaan sidoo kale barnaamijku waxa uu diiradda saari doonaa idaacadda radio daljir oo iyaduna maalintii afraad hawada ka maqan qaybaheeda gobolada bari mudug iyo weliba nugaal barnaamijkan oo aan isku dayno inaanu dareenkiisa ama dhinaciisa aanu ku wareysano wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaysan noo suurtagelin barnaamijka intuu socdo waxaa ka reeban aflagaadada sidoo kale barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa waan ku wareysan doonaa qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala idaacadda daljir iyo idaacadda daljir oo ka bixi jiray barnaamijka tartan iyo tacliin oo daayartu ay qayb ka qaadan jirtay saameynta ay ku yeelatay xayiraada dowladda puntland ee kusoo rogtay laamaha kala duwan idaacadda radio daljir ugu horreyn dhegeystayaasha waxaan usoo gudbinayaa oo aan rabaa inaan u ciyaaro waraysigii wasiirku uu ku sheegay in wariyaasha ay dowladdu leynayso waa gartay daljir baa ka xinaya cado saakataan galan dib u wareegtay sooma wiilkiiba galan dib u wareegtay baa laygu yihi haddana saaka oo bareeray iska bareeray wallaahi bilaahi tallaahi waa soomaaha wallaahi urur baa sheegaysaa inaanaan sharcigaana fulinaynin oo xeer aanaan eegeyn xabad iyo dil waxaan helana wareegaasha maanta ka duwanaynin subaa kuu sheegaya tabacdo oo warqadda adigu aad soo saartay wallaahi haddii gaal yimaado iyo haddii jin yimaado iyo haddaad moodaysa ciida xunxun aanu shalay ka soo tagay ingiriis iyo maraykan cid difaacayaan lugayna gacmihina ku waayna waxaan heleenaan idinla dhacay bilaahi adigu hadda wasiir baad tahay warqad baa soo saartay xeerkii puntland dastuurkii puntland qodob kama ad soo qaadan waa ka booday dastuurkaana noqonin walaa xeer baana noqonin walaa wax kalana noqonin iska dhigaan xabadaan haysana afkiina haddaan la soo gashaan indhahay wadnaha kaga soo saarayna oo sharci darra sharci darra iyo xoog baan idinku wadaynaa idinkaa xishoon waaye ma sharci darra wasiir dowladda ku xukumaysaan waa idinku xukumaynaa idinkaa sharciga dhaafay anagu dowlad sharci ku xukumi mayno xumo laakiin idinkaa dhaafay xumaanta wanaagii kasoo tegey hadalkii wasiirka wasaaradda warfaafinta oo 23 bishan June uu jeediyay xilli uu la hadlayay idaacadda daljir gaar ahaanna wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka howlgala idaacadda Galkacyo haddaba hadalkaasi waxaan eegi doonaa oo barnaamijkan diiradda saari doonaa qaar ka mid ah wariyaasha daljir dhageystayaashu khadka telefoonka ay barnaamijkan uga qayb qaadan karaan iyagoo soo wacaya telefoonada kala 8462 8462 iyo 8462 barnaamijkan diiradda waxa uu sida dadweynaha reer puntland ay u arkaan hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta uu ugu hanjabay wariyaasha in uu dilayo ama dowladdu ay dilayso isla markaasna uu ku sheegay inaysan eegeyn dastuur iyo sharci iyadoo loo yahay dowladda puntland ay jirto muddo 18 sano xilliganna ay u gudbayso ama la rabo in loo gudbo nidaamka qabaliga oo loo gudbayo nidaam dimuqraadiya iminka dhageystaha ugu horreeya ayaan siinayaa halow dhageyste magacayga daahir diiriya oo jooga boosaaso wey daahir kusoo dhawow barnaamijka ra'yiga dadweynaha idaacadda radio garowe sidee u aragtaa xayiraada idaacadda radio daljir oo 4 maalmood xidhan tartan iyo tacliinna uu baaqday sidaan maqlayo iyo hadalka hanjabaada ah wasiirka warfaafinta radio garowe waa ku mahadsantiin barnaamijkan labada qodob oo qodobna wasiirka uu yahay qodobna xayiraada raadiyaha ay tahay daljir qodobka wasiirka horta waa run oo in mas-uula inuu maaragtay saa u hadlo xoogaa waa laga fiicnaa laakiin waxaa ka keenay soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dheriga maxaa ka keenay kulka karka maxaa ka keenay marka wasiirka waxaan ognahay maalintii intaan la xayirin ama intuusan hadalkaas soo bixin ka hor inay waraaq soo saareen ay dhaheen saxaafaddu waxaan u diidaynaa in maaragtay dadka waxyaabaha kicinaya bulshada maaragtay ammaanka khalkhal gelinaya in laga waantoobo taasna waxa weeye idaacadda daljir sida wararka aan ku helay ama maaragtay laakiin idaacadda daljir waa idaacad madax bannaan oo ilaha xogta cidda ay la wadaagayso dastuurka puntlandna madax bannaanida wuxuu siiyey awood faafreebna laguma samayn karo arrintaasi iyada miyaysan ku muuqan maxamed ninka la yidhaahdo arrinta waxa weeye horta qof mucaarada oo maaragtay si nabadgelya maaragtay wax ku diidan waad wareysan kartaa laakiin qof leh waxaan burburinayaa dad baan leynayaa dad baan dhacayaa waxa weeye anagu hadda meeshan kaala hadlayo waa boosaaso
waa ogeed waraysiga waxaa laisku haystaa ninkan la yidhahdo gallan weeye. waa tahay aad baa umahadsan tahay dhegeystay weli halkaasaad nagala socotaani waa idaacadda radio garowe oo aad ka dhegeysanaysaan muujada f m ee 89.5 barnaamijkana waxaanu ku eeganaa hanjabaadii wasiirka wasaaradda warfaafinta ee wariyaasha iyo ra'yiga dadweynaha siday u arkaan iyo xayiraadda idaacadda al-shabaab. calaykum asalaam magacaaga walaalle. waa salaamay radio garowe barnaamijka barnaamijkan wariyaha uu ka hadlayo oo ah wasiiru ka hadlay uu hanjabay hadda dhegeysanayay inuu saxaafadda u leeyahay sharci darra ku maamuleynaa ama xoog baa ku maamuleynaa xabad baana naga dhexaysa an waxaan u arkaa hadal khaldan hadal mas-uulna uma aan arko waa hadal laga fiican yahay inuu ka hadlo hadal mas-uuliyeed dowladdu xiri kartaa wax way amri kartaa oo way xiri kartaa inuu xirto waa leedahay iyadoo sharciga usoo maraysaa sharciguna ma uu qabo in uu puntland saxaafadeeda uu xiro saxaafadda xorriyatul qowlku wax banaan weeyaan ma garatay waa tahay marka idaacadda dal jirna xidhitaankeeda iyada see u aragtaa wasiirku markuu hanjabaada u jeediyey wariyaasha waxaa ku xigay oo galabtii dhacay in la xidhay idaacadaha dal jir oo ciidamo hubaysanay ay qaybta garowe iyo boosaasiya gaalkacyo sida wararkaan ku helayno ay galeen. run ahaantii idaacaddu waa xor waxaa loo yiri inay dhexdhexaad u ahaato bulshada puntland bulshada soomaaliyeed wayna wareysan kartaa waxa iyagu waana wareysan dowladda wareysan kartaa waxaana wareysan kartaa qof kastoo mucaarada waa caadi waana waxa dastuurku ogolyahay in wax jira waddankeena ka shekeyso. aad baa umahadsan tahay dhegeyste. halba ku daraya dhinaca wasiirka ah haye wasiirku ma ahan inuu wuxuu yidhi hadda qodobka aan dhegeysanaya haddaa warkasa dhegeysanaya wuxuu yidhi xabad baa idinku maamulanaa waan idin leynaynaa mana xoog baanu idinku maamulanaa an runaantii uma arko hadalka hadal wasiir umana qalmo xilka uu hayo saxaafadda wasiirku ma ahan wasiirka warfaafinta waxaa looga dhigay inuu xuquuqda warfaafinta u doodo ku hayo ma aha inuu ayada u hanjabo waa sidaani reegayga tahay. aad baa umahadsan tahay dhegeyste. hay-adaa mudan waxaa naga xasuusina dhegeystayaal in wasiirka wasaaradda warfaafinta oo aanu telefoonadiisa aanu wacnay in ay suurtoobi weyday xilliga uu isagu diyaarka u yahayna barnaamijkan waa uu ka qayb geli karaa xilligan uu barnaamijku socdo xitaa waa uu furan yahay saasaad la soconaysaan. iminka waxaan rabaa inaan siiyo oo aan idinku soo dhaweeyo oo gordhaweyta studioha isna aan ku waraystay maxamed cabdilaahi cali kooshin oo ka mid a wariyaasha ka howlgala idaacadda radio daljir waxaana wax ka weydiiyey idaacadda oo weli xidhan iyo weliba arrimo kale oo ku aadan saamaynta ay ku yeelatay daa'yarta iyo dhalinyarada ku taxnayd barnaamijkan gaar ahaanna tartan iyo tacliin oo sanad kasta idaacadda daljir ay u qabato dugsiyada sare ee puntland. aad baa umahadsan tahay irbadow maalintii afraad ayaa idaacaddu ay hawada ay ka maqan tahay sifo sharci darraa ayayna hawada uga maqan tahay ilaa haddana waxaa issoo taraya sida aad ka warhaysid baaqyada ka imaanaya qaybaha bulshada soomaalida iyo sidoo kale international xataa ilaa safaaraddii mataqaanaa soomaaliya u qaabilsan maraykanka arrintii ay ka hadashay waxaa muuqanaysaa in weli sharci darradii idaacadda lagu xiray aan laga garaabin tilaabadanna runtii waxa ay dhaawac weyn u geysatay adeegii idaacaddu ay bulshada u haysay maxaa yeelay tani uma muuqato mid daljir lagu ciqaabaya waxay u muuqataa waxa weye ficil dadweynaha reer puntland dhaawac ku ah ficil runtii waxa weeye dhaawac ku ah adeegii idaacaddu ay u haysay shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga reer puntland waxaa istaagay dhammaan adeegyadii iyo wacyigelintii idaacadda oo maalinta afraad hakad ku jira waxyaabaha ilaa haddee runtii waxa weye culayska faraha badan uu nooga imaanayo oo qaylada oo faraha badan oo nooga imaanayso waxaa ka mid ah ardaydii baa ka mid ah tartan baa idaacadda ka socday sanadkii mar la qabto dugsiyada sare ee puntland loo qabto tartankii waa istaagay waxa weye sharci darkuna ku istaagay ardadaasi hadda waxay ahaayeen ardadii aan ka wacyigelinaynay inay dalka ay ka tahriibaan ardadaasi waxay ahaayeen ardadii runtii haddii alla kuu roon yahay niyadda idaacaddu ay ugu dhisaysay in ay aqoontooda ay kor u qaadaan tooda maadiga iyo tandiiniga ah islamarkaasna ay dalkooda ay ku kalsoonaadaan ardadii wadaniyadda la barayay bay ahaayeen waa laga joojiyey waxyaabahaasi oo dhan idaacaddiina weli way xiran tahay dowladdiina mataqaanaa ma aysan sheegin sabab ay ilaa haddar ay u xirtay laakiin anagu waxaan ku kalsoonahay sharcigaan ku kalsoonahay waxaan ku kalsoonahay dadweynaha soomaaliyeed iyo kuwa reer puntland baan ku kalsoonahay waa ujeedaa handadaadana la handaday cabsi baan weli dareemaynaa cabsi aad fara badan baan dareemaynaa waana dilayaa baa la yidhi xaaladdu halkaasay maraysaa waa tahay maxamed marka coach waxaa jirtay maalintii idaacadda la xidhayey oo ahayd 23 bisha juun
haddana khaldanayn subaxdeedii waraysi uu bixiyey wasiirka warfaafinta soo cadda waxa uu sheegan wariyaasha qaarna uu la dili doono oo ay dhibaato weyn soo gaarsiin doonaan marka hadalkaas iyo isla galabtii oo ficilkan dhacay idaacadda dalka qeybo ka mida la xiray sidee baa ma la odhan karaa hadalkii wasiirku waa uu kaga dhabeeyey wallahi cabsida ugu weyn oo soo wajahaysa haddeer bay ka mid tahay dadaadii ficilka ahayd oo tooska ahayd oo military ahaan ay dowladdu adeegsanaysa inay muuqanayso tilaabadii koowaad oo la qaadana waxay ahayd daljir garowe in ciidamo ay soo galeen oo qalabkii ay faraha la galeen cabsi weynba hadda waxaan ka qabnaa in qalabkii laftarkeedii damage uu gaaray oo dhaawac uu gaaray afartaa beri idaacaddu ay dinsan tahay qalab intaa shaqaynayo 24 saac shaqaynaya oo qaali ah oo ummadda loogu adeegayey waxyaabaha hadda maskaxdeena ku jira waxaa ka mid ah xataa haddii dib loo daaro qaarkood inaysan shaqayn karinba arrintaasna waa mas-uuliyad daro runtii waxaan u aragnaa inay tahay wax ay idaacaddu ay ka mudan tahay magdhow in laga bixiyo waase ogaanaynaa khayr baan rajeynaa tan kale haddaan usoo noqdo tan kale oo dhaartaadee ururka suxuufiyiintuna horey way uga hadleen annaguna uga hadalnay cabsi iyo walwal weyn bay runtii annaga nagu abuurtay codkuna meel walbuu ka baxay sida aad la socotid ficilka hadda idaacadda lagu xiray oo mataqaanaa tooska ana waxau markhaati ka yahay hanjabaadii tooska ahayd oo na soo gaarasay waxaan jawaabta arrintan u daynaynaa waa shacbiga reer puntland iyo shacbiga soomaaliyeed oo la rabo in ay arrintan jawaab ka bixiyaan maxaa yeelay annagu wariyaal baan nahay ma hubaysnin waxaan u adeegnaa shacabka weeye awoodayadu waxa weye shaqadayadu waxa weye dadka inaan u qarayno dadka inaan mataqaanaa dhibanayaasha codkooda inaan bannaanka keenno inaan dadka siino macluumaad saxa annagu qoriyo ma haysanno mana qaadanayno qori laakiin dadka dadweynaha ayaa waxaa looga baahan yahay in ay jawaab ka bixiyaan handadaada iyo dhibaatada iyo caburinta lagu hayo warbaahinta waxa weeye arrintan kaloo ah waan dilaynaana dadweynaha soomaaliyeed baan u daynaynaa waxay ka odhan lahaayeen hadday ka bannaan bixi lahaayeen hadday annaga protectionna siin lahaayeen iyagaan u daynaynaa mataqaanaa jawaabta ay arrintaa ka bixin karaan laakiin annagu waxaan samayn karna ma jirto waa tahay maxamed cabdilaahi cali kooshin oo ka mid ah wariyaasha idaacadda daljir oo ka warramayey halka ay marayso idaacaddaas oo maalintii afraad xidhan iyo saamaynta ay ku yeelatay barnaamijkii rabadaan kasta ay qaban jireen ee tartan iyo tacliin halkaad nagala socotaani waa idaacadda radio garowe herka f m 89.5 dhegeystayaasha ayaan mid ka mid a iminka siinaya oo khadka telefoonku jaalo dhegeysti halo magacaaga jaamac barnaamijka ma la socotaa mawduucyada aanu kaga hadlano ee ku aadan hanjabaadda wasiirka wasaaradda warfaafinta oo sheegay inay wariyaasha leynayaan sharci iyo dastuurna aysan eegeyn iyo idaacadda daljir oo maalinta afraad xidhan see u aragtaa horeynta waan salaamaya bahda radio garowe barnaamijka waa la socday in yar haddaan ka taabto barnaamijkan iyo hawshatan ka dhacday idaacadda radio daljir runtii horta waxaynu intaasoo sano kusoo naaloonaynay oo kusoo soconay oo ku dhaqnayd oo nabadda iyo xasiloonida aynu ku haysanay waxay ahayd kala damaynta iyo is-ixtiraamka iyo nidaamka inaynu u hogaansano saan ognahay waxaynu leenahay dastuur baan leenahay dastuurkaasoo aynu u qoranay muddo badanna aynu wakti badan aynu ku luminay inaynu ku dhaqano oo ku kala damayno oo dadku ku kala badbaadaanin dastuurka haddii aanan la ixtiraamin oo qof kastaba uusan u hogaansamina wax kala soconaya ma jiraanin oo nidaamka o dhan baa isku dhexyaacaya cidda koowaad oo laga rabo inay ilaaliso nidaamka iyo dastuurka ay qoratay waa dowladda cid kasta oo ay la mucaamalayso hadday tahay shacab hadday tahay dambiilayaal hadday saxaafad tahay hadday cid kaloo ka baxsan puntland tahay cid kastoo ay la mucaamilayso waa inay fiirisaa oo tallaabada uu dastuurku mataqaana soo jeedinaya waa inay qaadaa dowladdu marka runtii waa maqlayay wasiirka hadalkiisa runtii ma amaanin mana mahadin hadalka qaabka u dhahayay maxaa yeele qof mas-uul ah oo dowladdan mataqaanaa wasiir u ah oo ummaddan ay u jeedato inuu qaab noocaas u hadlaa misli ku dhawaaqa hadallo xasaasiyad gelinaya amniga waxudilaya iyo wax noocaasa runtii ilama haboono oo laaqira ma aha qofka waxaan u malaynayaa dee xaalad caadiyana kuma usa sugnayn wasiirku markuusaa dhahayay haddana haddii dib loo weydiiyo laakiin arrinta xaaladiisa iyo waxa anagu ma ogaan karno hadalkiisa bes baynu ka hadlaynaa barnaamijka wixii aflagaado ama anshaxa waa inooga reebaya aad iyo aad marka walaalayaal adoo mahadsantiin marka kolley idaacadda la xirana kuwa faraxsani sidoo kale waxaa jira waxaa rabaa wariyaasha iyo idaacadaha warfaafinta waxaa rabaa inay ka fogaadaan ruuxooda wax kasta oo taasiyad keeni kara wax kastoo bulshada kicin kara wax kastoo amniga wax u dhimi karaa oo maadaama xorriyatul qowl waynu nahay sanaa oo xorriyad waynu nahay oo saxaafaddu xor waa tahay
laakiin waxaa la rabaa xornimada inaynan si kale u fahmin oo qof wax kasoo sheegi kara aysan noqon ama wax kastaba sheegi kara misna waa inaad u yidisaa ama u tudhaa bulshadaada iyo dadkaaga u danaysaa wixii dhibaato keeni kara ama amniga khalkhal geeni kara waa inaad ka fogaataa waa tay aad baa umahadsan tahay walaale ra'yigaaga in dad badan baa iyaguna ku jira aad baan kugu mahad celinaa ka qaybgalkaaga wanaagsan hallo assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu adoo dhegeysta soo koobaya waktigu aad buu yar yahay aragtidaada ku aadan mawduuca barnaamijkan ee ku aadan xayiraada la saaray idaacadda radio daljir oo xidhan maalintii afraad iyo hanjabaada ka soo baxday wasaaradda warfaafinta ee dowladda puntland wasiirkeeda maxamuud xasan soocad see u aragtaa walaal aad baa umahadsantihiin radio garowe waxaana leeyahay rabadaanulkariim runtii anu arrintan waxaa u arkaa nasiib daro runtii aada weyn oo usoo hoyatay ummadda reer puntland waxaana aada ula yaabay wasiirka warfaafinta hadda ka hor xilligii la ansixinayay ama qodobo kamid ah dowladda xildhibaanada dowladda federaalka marka ansixinayay runtii wasiirku wuxuu ka hadlay in qodobadaas aysan dowladda puntland aysan u cuntumayn laakiin inuu haddana cadburiyo oo leeyahay saxaafadii puntland oo u dhaaranaya xarig baan waana xiranaa waana xabadaynana runtii wax u qalma hadalka maha ummadda reer puntland ma garata waa gartay waana cambaareen waxaana dhahanaa hay-adaha xuquuqda biniaadamka u dooda inay arrintaas ay wax ka qabtaan dowladda uu xukuumadda cabdulla cali gaasna waxaan leenahay in wasiirka heer maxkamada lasoo istaajiyo sababtoo ah wuxuu ku hadlay ummadda shacabka reer puntland magacoodu ku hadlay magaceen runtii wuxuu ka dhigay magacaan u qalmi karin ummadda reer puntland waa tahay marka idaacadda daljir baa iyaduna xidhan hadalka hanjabaada isla galabtii subaxdii markuu wasiirku jeediyey idaacadda daljir qaybo kamid a laamaheeda ay ku leedahay puntland ayaa la xidhay adoo soo koobaya taasna see u aragtaa walaal arrintaana shacabka reer puntland haddaan nahay aad baan uga xunahay idaacadda la xiro even haddii ay dowladdu wax u qabto radio daljir si sharciya inay qaadato maxkamada tagto ay soo dacwotay dowladdu mudan tahay ma garatay waa tahay aad baa umahadsantaa dhegeyste waa tahay dhegeystayaal weli halkaas nagala socotaan oo idaacadda radio garowe dadka naqdiya siyaasadda wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda puntland ayaa tilmaama in hadallo badan ay hore uga dhaceen kuwaasi oo lidi ku ah dowladnimada iyo mas-uuliyadda hadalladaasi waxaa ka mid a waraysi uu dabayaaqadii sanadkii hore 2015 uu siiyey telefishinka somali channel waraysigiina wuxuu dhacay sidaas way jirtay Soomaha mar aad ku taageersaneed oo London joogtay intaad wasiirka noqoto markii qabyaaladii waan taageersanaa qabyaalad baa ku taageertay cadaan bay ahayd markii SSC ahayd markii la hadul bahantaa la xoreynaya maanta qabyaalad ku taageeray maanta hadii dagaal ay qaadayaan oo ay dagaalamayaan qabyaalad ku taageeraya adigoo shalay anoo wasiir haday dagaalamayaan qabyaalad ku taageeraya anoo wasiir shalayna waxaan u taageeray wadanka hadii la xoreynayo anoo dhul bahantaa in la xoreeyo aan qabyaalad ku taageero maanta hadii qabyaalad ku xoreynayaan anoo wasiir baa qori ka qaadanaya waa tahay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa idaacadda radio garowe barnaamijkuna waa barnaamijka live ama si toosa uga socda idaacadda radio garowe oo ku saabsan hanjabaada wasiirka wasaaradda warfaafinta uga timid wariyaasha u jeediyey iyo idaacadda daljir oo iyadana dowladda puntland ay xidhay iminka dhegeystaha ku jira hallo dhegeysta adoo soo koobaya barnaamijka oo gabagaba maraya dartiis waa mahadsantahay cabdiqani iyo baawinta idaacadda garowe dhamaanta waan salaamaya waa kaa qaada waal magacaaga magacaygu walaalo xamdi waxaan kaa soo hayaa xafidan tuwadaag haye xamdi see u aragtaa hadda la socotay labadaasi arrimood ee barnaamijku ku saabsan yahay ku aadan hanjabaada wariyaasha uu wasiirku uu sheegay in la laynayo iyo idaacad daljir oo iyaduna hawada ka maqan maalintii afraad horta aad baa umahadsantihiin idinka laftarkiina waxaan dhihi lahaa wariyaasha waxaan moodayay aad wax u buunbuuninaysaan xaqiiqada aydan ka hadlayn aad moodiyay inaad dadka kicinaysaan marka waxaan dhihi lahaa wax badan waa inaad xeerisaan oo aad xamdi anagu cid budbuunin mayno barnaamijkan ra'yiga dadweynaha ayaa marba mawduuc lagu soo qaataa intii wasiirku uu sheegay iyo ficilkaas dhacay ee daljir wax ka baxsan kama hadlayno xaqiiq weeye laakiin wariyaasha mar walba waxaa fiican inay dhinaca wadaniyada iyo dhinaca wanaagga dalka inay ka hadlayaan fiican aniguna haddaan barnaamijka kusoo dhawaada anigu waxaan arkaa horta wasiirka hadalkiisa lasoo dhaweynaya laakiinse waxaan dhihi karaa wasiirka waxaa horta dheriga maxaa ka keenaa kuleel hallo
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhegeyste kusoo dhawo barnaamijka ra'yiga dadweynaha gabagaba ayuu marayaa sidee u aragtaa idaacadda daljir oo hawada ka maqan oo maalmihi lasoo dhaafay la xidhay iyo hadalka wasiirka ugu hanjabay wariyaasha. walaal horta aan ku bilaabo magacaygu waa Mustafa Huruuse waxaan joogaa Garowe aad baan horta uga xumahay in la xiro raadiyo daljir haddaan horta dhinaca wasiirka ku horeeyo nin wuxuu wasiirku dastuurkii dowladda Puntland buu daal maray madra waa gartay haddii maanta maxkamadda jiri lahayd oo maxkamad ay joogi lahayd oo wasiirkaas toos eego ee maxkamada way jiraan oo dowladda Puntland waa leedahay hay'ado garsoor oo saddexda hay'adood ee dowladda u dhisan yihiin marka ka soco walaa dastuurka hay'ad dastuuriga waxaa jira maxkamad dastuuriga baa jira dastuurka waraabsanaysa nimanka kuwa waa garsoor weeyaan ma garatay marka madaxweynaha waa ka codsanayna inuu maxkamadaas si fiican u dhiso waxa kale oo aan ka raali gelinayaa dhibaatooyinkii iyo hanjabaadda u dhigdhigayay hadda waa xunahay ma garatay waa gartay wasiirkana waxaa leeyahay haddii weli wax gaaraan ama dhibaata soo gaadha isagaa maxaa heedaya loo haystaa isagaa loo raacanaya maadaama uu hanjabaad bixiyey waa ku degdegeen oo raadiyo daljir in lagu degdego oo aan warqad loo keenin oo sharciyan aan ahayn in la xiro oo warqadii sugada maxkamadda aad baa loogu degdegay waa tahay aad baa umahadsan tahay dhegeyste ra'yigaaga waxaan mar kale la socodsiinaa dhegeystayaasheenna iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee dhegeysanaya barnaamijkan in wasiirka wasaaradda warfaafinta waan isku daynay inuu barnaamijkan uu dhinaciisa uu ka hadlo inaysan noo suurtoobin xilliga ugu horeysa ee barnaamijkan uu ka qayb qaadan karo ama ay uu doonayo inuu ka hadlo waa uu furan yahay idaacadda radio Garowe ama waa uu nagala soo qayb gali karaa iminka dhegeystayaasha gabagabadii barnaamijka ayaan marayaa hallo dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaya السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaasha ugu dambeeyay mid kamid ayaa tahay see u aragtaa mawduuca barnaamijkaada oo fiirinaya idaacadda daljir oo xidhan iyo hanjabaada wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland uu wariyaasha ku sheegay inay dilayaan hanjabaad xun oo warfaafinta uu ku haboonayn isagoo xil weyn hayo inuu idaacaddiisa ugu hanjabo oo yawaan leeyahay waan in xiraya wax laga fiican yahay oo aad looga qabto wasiirka warfaafinta waa tahay idaacaduna waa idaacad maxaa bulsho waxa soo kaali ka dhaa barnaamijka soo raadi ka dhaa idan waa idaacad xog raadi sameeyay waa gartay marka waxa weeye arrinka fiicay waa intuu wasiir ka noqdo arrinta oo dadka oo idaacad barnaamijka ka socday dadban baa ku xirnaa bulsho dhan bay u shaqeynayay idaacaduna waxay ahayd bulshadan wada dhan bay ka soo hadli jirtay dad dhan bay maxaa u ahayd baashi aad baa maasanta dhegeyste hay'adaha laba mudan waa tahay dhegeystayaal weli halkaas nagala socotaan idaacadda radio Garowe barnaamijka maanta waxa uu ku saabsanaa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo hanjabaad u jeediyay in wariyaasha oo sheegay dilayaan iyo waliba idaacadda daljir qaybe kamid ah xarumaha ay ku leedahay Puntland oo iyaguna hawada dowladda Puntland ay ka saartay haddaan mar kale idinku celiyo inta nagu soo biirtay hadalkii hanjabaadda ee wasiirka baladana la dhegeysta waa gartay daljir baa ka xinaya cado saaka taankan dib wanaagsan Soomaa wiilkiiba galan dib u wareegtay la leeyahay haddana saaka oo bareeray iska bareeray والله بالله طلع الصومالي والله قولوا الباشاقة سنة شرعي قريت فلين وحير أنا نهيجين حبك يدل وحاهر أنا وريقاش ما تكدوها هيني ثم كوشي يتبعدوا وورقد هذا وصوصة والله يديك قال لي ما يديك يداد مولا سنة إذا حنا أنا مش شايف كسر تجاه إنجليز يا مريكان عندي ساعة يا لوين يقعدين يكوا هنا والله يسوي حنا نجلد عليه بالله أذو هذا وزير بات ورقد بس صارتي xeerkii Puntland dastuurkii Puntland qodobka ma soo qaadan waa ka boodey dastuurka waa xeer baan noqon wala wax kale ma noqon iska dhigan xabada ma isma afkiina hadaan la soo gashan indhahay uma aan ka soo saaray oo mashruuc dara wasiir sharci daro iyo xoog baan idinku wadeynaa idinka xisho waayay mashruuc dara wasiir dawladda ku xukumaysan waa idinku xukumayna idinka sharciga dhaafay anagu dawladda ay ku xukumayna xumo laakiin idinka dhaafay xumaanta wanaagi ka soo tagay
waa tahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta mawduucii barnaamijka ku saabsanaa sida dadweynaha reer puntland ay u arkaan xayiraada lagu soo rogay idaacadda radio garowe qeybo ka mida iyo hanjabaadii wasiirka wasaaradda warfaafinta uu ugu hanjabay wariyaasha inay la laynayo intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa